sababtu hooyadiis ay ku dhimatayna aniga aan leeyahay. waxaa intaas kasii daranay tiri inaan waxay tiri aanan qofna la wadaagi karin tiri arrinkan oo ah aniga hooyadaa dilay, anigaa 8 sanana ku cadaabayay, darteeda u cadaabmaysay, anigaa familkiinii kala geeyey. waxay tiri maalintii waxaan dhintay tiri 100 mara, amuut kulla yawm 100 mara. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ولا له دمانتين meel kastoo aad joogtaan ii soo dhawaada meeshan adiga fiirsanaysaan waa janalkayga Aamina Shiquna. waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalaha aniga igu soo biiray, walaalaha muuqaalka like saaray, walaalaha videoga fiirsaday ilaa ay dhamaad, xataa wax yar ka fiirsaday, xataa furay. waa idin mahadcelinayaa dhamaantiina. sheekadeena maanta waxay ku socotaa qisadii daraad aan soo geliyay iyo shalay midii aan soo geliyay daba socotaa. waxaa waaye gabar sodohdeeda ama familkii oo ninkeeda oo dhan dhibaataysay. maxay ku dhibaataysay gabadhan familkan? waxay leedahay gabadhan 21 sano markaan jiray ayaan guursaday, zawjkayga aad baan u jeclaaday tiri, aad iyo aadaan u jeclaaday. subxaan allah, wax walbo xadkooda dhaafo cagsay noqdaan, dhibaatay sameeyaan hadhow. wax walba qiyaas, naceebkana hala qiyaaso, jaceylkana hala qiyaaso. lianna wuxuu yani caqligii maskaxdu kaala wareegaa waxa sameynaysa mataqaanid hadhow. si xadka ka baxsan u jeclaaday leeda zawjkayga aniga. waxay tiri waxaan la deganahay tiri marka familka oo zawjkaygaan la deganahay guriga. yani waxay tiri way dad familka oo zawjkayga waxay ahayd dad aad iyo aad isugu faraxsan, walaalihiis aad u jeclaa, waalidiintiis aad u jeclaa, qaasatan hooyadiis wuxuu ahaa wiil baari ah. waxaa dhacayso inuu maanta dhan hooyadiis wax u soo gado, walaalihiis u soo gado, u soo adeego, oo meel wax lagu wada cuno, yani la faraxsan yahay. waxay tiri aniga xaqiirnima ay gashay tiri iyo xaqda ay galay oo xaasnima ay gashay. waxaan dhahay tiri yani waxaan jeclaystay tiri zawjkayga in bas aniga igu koobnaado, aniga bas oo igu koobnaado. waxay tiri maalin ka dambe xaasnimada igu ziyaaday tiri, oo waxaan ku fikrayay sidaan arrinkan wax uga qaban lahaa. waxay tiri ogaada markuu walaalihiis wax u soo gadaayo macnaheeda ma ahan tirin aniga i qadinaayo, waxbuu ii soo gadaa, hooyadiisna u soo gadaa, walaalihiisna u soo gadaa. fanicma zawj, qofkaasoo kale askaali karo oo qof walba xaqiis siinayo, walaalihiisana ka warqabo, oo adna kaa warqabo, hooyadiisana ka warqabo. in alxamdulilah dhahda ma aheno, ilaahay iimaanka hana geliyo, ulil albaab allah naga dhigo, dadka caqliga iyo aragtida u saaxiibka ah. maxaa ku falay zawj caaqi oo maxaa la dhahay ii sheeg cuquuq waalideen oo caasi ah? maxaa lagu falaa? ilaahay naguma sallada zawj caasi ah. waxay tiri arrinkiiba aniga waxay tiri wuxuu ii dhaawacay. maxaa kaa galay? oo waxay yani wuxuu noqday tiri wax aniga aan qaadan waayo. waa fakray tiri marka waa inaan qorshe la imaadaa. qorshahan la imaaday waxaa waaye tiri waxaan dhahay tiri aniga gurigan, waxay tiri marka guriga waa laisla degan yahay, laakiin waxay tiri aniga qaybaan deganahay, shaqay dhahaan carabta. aniga shaqadeeda waxay tiri waa mid weyn oo igu filan. waxay tiri aniga meeshaan martaax ma ku ihi, aabbahaagaa joogo, walaalahaagaa joogaan, hooyadaa joogto, ana ma agdar aaqud raaxtii. aniga waxaan rabaa in ma aragtay oo dadkan aan isla degnaani waa la kala raray. waxay tiri waana la kala raray, keligeygaan noqday tiri. waa farxaday. markay faraxday maxaa dhacay markaan? zawjkayga waxay tiri maadaama la kala guuray, hooyadiis unbu 24 saac fadhiyay tiri, waqti yar unbuna anagana la qaataa. lianna waxay tiri baarinimo mucjizo ah ayuu qabay tiri wiilkan. maadaama habartii lasoo hooyadii aan kala raray tiri iyo familkii wuxuu la joogay tiri hooyadiis iyo walaalihiis la jooga maanta oo dhan. waxay tiraan intaas waa igu filnaan weysay, intaas waa igu filnaan weysay. waxaa la horta god xujaha qodina la yiraahdaa, qodaha dheerin ku dhacay sida ma ogide. waxa u fiicneed in la isla degnaado, ayadana waqti uu la qaada lahay. hadda hooyadiis uu jeclaa xabiibtiis ahayd ka soo rartay,
waa in hooyadiis waqti la soo qaataa. waxay tiri amarkii markaan u dulqaadan waayay tiri oo aan saas yani u fiiriyey waxaan go'aansaday tiri horta waxaan u sheegi tiri saaxiibadayda yani qisooyinka ayaamaha aan arkoy dhan aan la kulmoy dhan saaxiib unbaa sabab u ah dhibaatada meeshaan ka dhexeyso. saaxiibadayda u sheegay tiri waxay tiri dhibaatadaas haysato oo waxaan rabaa tiri aniga familkan inuu kala go'o, familkan inuu kala go'o karima inuu baaba'aan rabaa tiri farxaddan waxaan ku jiraan dhan ay dhibayso. mararka qarniyada waxaa ka soo galaysa cadaabka maxaa loo sameeyay, cadaabka dadkan kale loo sameeyay ilaahay waa nagu dari rabbiyo. yani sidee maxaa ii sheeg ka helaysa hadaa qoyskan faraxsan baabi'isid, maxay ka haystaan, maxaa ka soo galay, maxayse kuu dhibaysaa adiga, sidee u dhibi kartaa qofka ibni aadamka farxadda qofka kale. xasbuna allah wa ni'ma alwakiil. saaxiibadaydu waxay tiri dhageyso anaa waxaa ku hayaa tiri nin arrimahan ku kala tuuraya familkan bari iyo koonfur u kala diray iyo waqooyi galbeed. waxay tiri inta ma joogee wadanka loo jooga wadamada carabta kamid ah waxaa rabaa tiri in ani ma aadi kariye sidee leeyahay. waxay tiri basiit tigidka iga bixiye tiri lacagtana keen oo wax lagu soo suubinayo anaa ku keenayo. balad ila balad ya dalka dal waxaa loo aaday sixir. gabadhan tigidkii aan u gooyay way baxday wadankii tagtay oo sixirka laga soo qaadayay. ilaahu dulqaad badanida yaa xaliim yaa cadiim. leyl wa nahaar ilaahay waa caasinayna, arladiisaan ku soconnaa, hawadiisaan ku soconnaa, rasaqiisaan cunaynaa, caafimaadkiisaan wax ku halaynaynaa. laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inaa kunaa min adaalimiin. laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inaa kunaa min adaalimiin. dadka waa kala indho adag yihiin, dhasha iblays way kala indho adag tahay. xasbuna allah wa nicma alwakiil. waxay tiri waan baxay waan dhoofay waa dhooftay tiri gabadhii way baxday. aniga waxay tiri intay iigu maqan tahay sixirka waxay tiri waxaan ku jiray tiri xaalad waa sugi la ahay yani qof oo yani viisadii jannada uu ku gali lahaa u soo socota camal aan ahay tiri dhaqankeyga. gabadhii sixirka ii keentay tiri waxay maqnaataba sixirka markay ii keentay tiri shiiqa telefoonkiisa la ii soo qaaday waxaan dhahay tiri telefonkii aan kala hadlay sideen yeelaya sheekh callimni. sixirolayaasha dhan sheekh waay. xasbuna allah wa nicma alwakiil. callimni yaa sheekh. waxay tiri wuxuu i dhahay kula 5 ayaam shahr yani hal bil kaamile 5 maalmood kadibba cuntada ugu darsadoodaada sixirkanaan kuu keenay. waan bilaaway tiri anigoo faraxsanay tiri oo baan ku qanacsan naftayda waxaan sameynayo. sixirkii baan waxay tiri aan ma aragtay cuntaan u kariyay tiri sadoodeydii waa u geeyay tiri waa ugu daraa. cuntadii markay cunayso waxay leedahay aniga saan u faraxsanahay oon u raaxaysanayo qalbiga waxay tiri yargus qalbi yani qalbigayga dheelayay tiri farxad dartiisa. waxay tiri maamadii cuntada markay dhammaysato ku hubsado waxay leedahay alla yajziiki khayr ya binti ilaahay khayr ha ku siiyo islamu idaayk alla yactiika alcaafiya alla yطول cumrak. cuntaa ii soo karisay maaha axla maa sha allah طayiba. waxay tiri goska dambaa ka qosla. bishii ii dhamaatay tiri bishii markay saas u dhamaatay oon ku hubsaday tiri sixirka dhan sadooday waxaa bilaawatay tiri xanuun mucjizo sadooda inuu caloosha ka qabto. waxay tiri dadkii oo dhan waa ku dul ooynayeen tiri dhaqtaraa loola cararay. waxay tiri si kastaa loo baaray caloosheeda waxa ma qabto, si kastaa loo baaray caloosheeda waxa ma qabto. waxay tiri aniga ummadii way ku dul ooynayeen tiri aniga waxaan sugi la ahay bay tiri aan sugi la ahay intay naagtan ka dhimato ay dhaafto, intay ka dhimato ay dhaafto. qalbigayga waxay tiri markaan arkay tiri tata'allam wahiya tata'allam yargus qalbi min farxati. qalbigayga waxay tiri farxad buu la ciyaaraya bay tiri oo waa sugi la faaruq sabr intay ka dhimato.
waxay tiri kaniiniyaal guriga lagu soo celiyay, kaniiniyaal iska qaadanaysay, musakinaadii qaadanaysay. waxay tiri waan sabri waayey oo sixirkii baan u ziyaadiyey tiri sodohdee, yacni inay iga dhimtacayo. waxaa imaatay tiri maalintii ay sodohday dhiman lahayd oo adduunyadan ay faaruqi lahayd oo sixirkii aniga aan u sameeyey ay ku dhiman lahayd. waxaa intaas ka sii daranay tiri raxmad yar, naxariis yar qalbigayga waxay tiri ma galinay tiri, cabsi yaro min allaahi qalbigayga ma galinay tiri. waxay tiri maalintii guusha noloshay ii ahayd maalintii ruuxa ilaahay uu ka qaaday sodohdayda oo way dhimatay. takhallasta minha, yaa waan ka taqlusay, waa la soo aasay. khalaas irtaxat nafsii, naftayda way irtaaxday, aniga dhan leyr caafimaad ay soo martay. waxaa dhacday tiri markii la soo aasay sodohdayda zawjkayga in uu gala xaalad nafsiya. hooyadiis aada u jeclaa, wuu ka sabri waayey, hooyadiis geerideeda. waxaa bilaabatay tiri odagayga in maaragtay yata'alam geerida hooyadiis, uu ku xanuunsado, uu ku dhibaatoodo. oo waxay tiri aan maaragtay dareemo anigana 8 sano in eedan jeclahay. 8 sano marka aan kasoo wareegatay tiri walaa laxza, yacni daqiiqadna zawjkayga ma u maleeyo inay kasoo wareegatay geerida hooyadiis oo maalintay dhimatay ula mid tahay nolosha. waxay tiri waxaan arkay tiri zawjkayga 8 sano markii kasoo wareegatay, haddaanan qaldanin 8 sano markii kasoo wareegatay, zawjkayga weli sida u dhibaatoonaya. markaasaan waxaan dareemay tiri dembiga aan geystay, shaydaankii markaasuu maaragtay qalbigayga ka baxay. markaasaa indhaha ii furmeen, markaasaa qalbigayga wacyigiisa uu soo noqday. laakiin waxay tiri bacda faata alawaam maxaa laga gaaraa oo sodohdaydii anigaa dilay, gacantayda ku dilay. zawjkaygii jeclaa ii aaminay, noloshiisa igu aaminayna, iyo familkii i jeclaana waan kala geeyey. zawjkaygana wuxuu ku jiraa xaalad cadaab ah, mana noola mana dhimanin geerida hooyadiis darteeda. sababtiisana aniga aan leeyahay, sababta hooyadiis ay ku dhimatayna aniga aan leeyahay. waxaa intaas kasii daranay tiri inaan waxay tiri aanan qofna la wadaagi karinay tiri arrinkan oo ah anigaa hooyadaa dilay, anigaa 8 sanana ku cadaabayay, darteeda u cadaabmaysay, anigaa familkiinii kala geeyey. waxay tiri maalintii waxaan dhintay tiri 100 mara, amuut kula yowm 100 mara, aan dhimanayaabay tiri. si aan u sheego iyo si aan arrinkan qof ula wadaagana ma aqaano. hadda qisadan waxaan uga sheekeynayaabay tiri in ma aragtay un qalbigayga wax yar culeyska hadduu ka degaayo lacalla. waan ogahay tiri qisadeyda markaad akrinaysaan waad inici doontaan, waadni habaari doontaan, mana i jeclaan doontaan. waan ogahay tiri waxaan sameeyey wax la iigu naxariista inaysan ahayn. waa ogahay tiri inuusan ilaahay ii dembi dhaafaynin, laakiin waxaan idinka codsanaa inaa ii soo ducaysiin oo ah lacala allahu yarxamunii wayakfir lii. xasbuna allah wanicma alwakiil, xasbuna allah wanicma alwakiil, xasbuna allah wanicma alwakiil. adiga hadda qoftan maxaa dhihi lahayd? ma u ducayn lahayd inuu ilaahay dembigeeda u dhaafo? maxaase kula talin lahayd qof noocaan oo kale haddaa aragtid inuu arrinkan sheego? bal fikirkiina waxaan rabaa insha allah inaad commentiga iigu soo qortaan. aniga waxaan dhihi lahaa adduunyo aakhiro way kala badan tahay, ilaahayna waxaa way yakfiru liman yashaa, ilaahay wuu u dambi dhaafaa qofku doono. arrinkan inay sheegto oo dadka uu quseeyo ay la wadaagto waa un laba mid. hadday cafiyaan ayagana maaragtay ilaahayna ay u toobad keento, dhiigga qofkii lahaaya cafin karo. haddii maxaan ku idhaahdaa oo la cafin waayana qisaaska lagu fuliyo. maxaa yeelay wax walba waxaa ka daran cadaabka aakhiro oo daa'iman abadan ah ka daran. aniga waxaan dhihi lahaa ilaahayna u toobadkeen, dadka ay qusaysan arrinkan u sheegaan dhihi lahaa haddaan la kulmi lahaa qof noocan oo kale ah. dabcan haddaan la kulmi lahaa qof noocan oo kale ah waxaan dhihi lahaa u sheeg qofkay qusayso. bal idinka waxaad dhihi lahaydeen haddii aad la kulantaan xaaladan oo kale? walaalayaal
maaragtay commentiga iigu soo qora. waxaan idinka codsan inaad sheer garaysaan qisooyinkan muhiim jiddan waaye. waxaa laga yaabaa qof arrimahaas ku jiray inuu ka waanto waa laga yaabaa insha allah, ama qof sameeyey inuu ma aragtay faatil awaam intuusan dhimanin qofkaas uu cafis weydiisto dadkii uu waxaas dhibaatadas ku sameeyey, ilaahayna ugu toobad keeno. toobadii ilaahay markasta way furan tahay, wax kastana ilaahay addoonkiisa hadduu rabo waa ka cafinayaa. tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun. إن شاء الله إلهي يا رب تب علينا لنتوب إليك يا رحمن يا رحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. رعب وحاواي قصوين كايانتان وقصوين عبسئة إلهي أنا جنجيو أنتي ولال أو ما أركتي مسلمات مؤمنات وحنون سن وأرن كان لا حنون سن ملايين أجري إلهي سبحانه وتعالى هكفر سحرك يا إيشا يا دباتوينك loo geystay meel kastoo jasadkii caqliga iyo ruuxa laga dhibaateeyey iyo guryahooda. guryaha muslimiintaana farxadii barwaaqa allah keeno, shayaadiintii xaasidiintana allah ka dhex saaro. walaalayaal calaykum adkaaru sabaax wamasaa ha la aqristo, dikriga ilaahay ha lagu dadaalo. suuratu lbaqara calaykum, suuratu lbaqara calaykum, suuratu lbaqara. liannu qofka suuratu lbaqara aqriyo waxba laguma samayn karo. in shaa allah qisadan qisada xigta waxaa ka dhigi doonaa gabar masaakiin ah oo sodohdeeda nolosheeda ay jaxiimo u xawishay oo ku samaysay waxyaabahan oo kale. waxaa laga yaabaa dadka inay ka waantoobaana laga yaabaa markay waxyaabahan oo kale dhageystaan. ilaahay baa laga yaabaa inuu kusoo hanuuniyo qof. arrinkan waxaan rabaa inaa uga faa'iidaysto. dhibaato haddii aad la kulantid waxaa waaye fafiruu ila allah, ilaahay ha loo laabto, ilaahay ha loo laabto. in sha allah ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada waa naga saarayaa. muuqaalkan muuqaalka xig intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. fii amaan illah.